مريا وط هذا ما هو والله وطن ما عدالة الله بحي ما هذا حق ويا عدالة مريا وطن مريا سامات كر أكل مريا سنة وطن حق الله مريا عدالة الله مريا عدالة الله مريا أنا وعدالة sidaas aad maqlayseen ayay ku bilaabantay maanta hawsha ay qabanaysay dawladda hoose isla markaasina ay qandaraas ay ku siisay shirkadda NCC la yiraahdo shirkadka dhismaha ee magaalada Boorama kamid ah taasi oo maanta ka bilowday wado 1 kiiloomitir dhererkeedu dhan yahay oo xaafadda Sheekh Cismaan ee galbeedka magaalada Boorama ku taala wadadaasi ayaa ilaa nus kiiloomitir in ka mid ah mas'uuliyiinta shirkaddu sida ay sheegeen maanta ay durba dhismaha iyo hagaajinteeda ay ka bilaabeen iyada oo qaybaha kalena ay maalmaha soo socda bilaabi doonaan mas'uuliyiintii aan goobtaasi kula kulanay markii aanu booqanay ama aan gaadhnay waxaa kamid ahaa xogayaha dawladda hoose Cabdirasaaq Cali iyo gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka Muumin Gadiid waxa iyaguna sidoo kale joogay mas'uulka ama iyo kusimaha agaasimaha shirkadda NCC Cabdi Caraale Xadi oo iyaguna sheegay sidan soo socota sida wax la socotaan waxa ka bilownay wadooyinka magaalada bari iyo galbeed wadadii bariyada hore ay u socotay maalintii dhaweeyay in galbeed kala soo arkaysan maxaa ka bilaabay wadada wax la Sheekh Cismaan wadada ugu jirtay weeyaan projectiga taagay bilaabeen waxana qaatay qolada ya qaatay oo qadraaska ku guuleysatay qoladina waa hawshan way socotaa insha Allah arkaysan waa imisa kiiloomitir adirsan 1 kiiloomitir bay tahay taimkan dhisayno waxaan u sheegaynaa dadka guryaha iyo sadaqadaha iyo bulasha kule oo nin badan uga digay inay kala baxaan aruurta cagabtay soo galaysa inta dhay inay kala sii baxaan kalabta inta soo sheegnaa alxamdulillah rabbil caalamiin sidaa wuxuu hay'adaha bulshada dawladda sidaa uu sheegayo waxa weeyaan waa wadadii labaad wadadani Sheekh Cismaan weeyaan tan doorna shacab jool bahayd waana wax qabadka dawladda hoose iminka ay ka wado magaalada wad baqayseen haween hore kuwa wax tashiir oo waxyaalaha jirka hadlay dawladda ceebinay waxa dadweynaha ka marxaatay dawladda waxay qabatay oo waxa weeyaan wala arkaya marka sidaa wuxuu sheegay waxaan jecelahay dadweynaha waxaan faraynaa in wadada inta hadhay dadka dhex yaale iyo kuwa buulashada iyo kuwa biitooyada iyo xoolaha inta ay ka fursan hawshana way soconaysaa hadii Ilaahay ka dhigo والسلام عليكم الرحمن الرحيم wadadii aan ku guuleysanay ee galbeedka Sheekh Cismaan anigoo ah magacaygu yahay Cabdi Caraale Xadi agaasimaha shirkadda NCC hawshii waan bilownay si wad aragtay inaan wadno waxaan rajaynaynaa inaan si fiican u sameeyno si loogu talagalay dawladda hoose iyo maamulka madaxdana waxaan ku codsanaynaa in dadweynaha iyo wixii wadada ku jira ay wax nagala qabtaan oo naga caawiyaan waana ka baxay حوالي واحد دقنها حافظة شاكر ما عيبتا goobta ayaan deganahay waxaweye aad iyo aad baan ugu faraxnay wadooyinka quruxda badan ee naloo bixinayo taas oo dawladda hoose iyo hay'adaha dadka kaalmeeya ay noogu deeqeen